Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Akhyaarta waa idin salaama dhammaantiin saa u dhantiin meel kastood kala joogtaan dunida daafaheeda. Halkaad igala socotaan waa Ladan Official. Fadlan haddii aad ku cusub tahay dhegeystow janalkan isku day inaad subscribe gareyso muuqaalkan siina share garay lana wadaag familkaaga faniskaaga gambaleelkana onka dhigo si uu kuu soo gaaro muuqaal kastoo aan soo dhigno insha Allah. Walaalkay haddii aad hore iila joogtay ama walaashay haddii aad hore iila joogtay fadlan like tayga iloowin iina share garay qaybta commentigana igu dhiib igu reeb wixii dhiirigelin ama fikrad ah insha Allah waan taxgelin doonaa codsigaaga. Waxaan idin wadaa qiso ku dhacday gabar lagu magacaabo Sumaya waxayna ka qabsatay family ahaan insha Allah waxaan rabaa inaan idin la wadaago qisada tan haddii ay ku soo gaarto si share garay lana wadaag familkaaga faniskaaga insha Allah. Waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtiin meel kastood kala joogtiin farxadna ku noolaada biidhnillah. Qisada tan sidatan ayay ku bilaabanaysaa ku soo dhawaada. Waxaa jirtay gabar ku nooleed Soomaaliya gobol ka mid ah waxaa jirtay gabar ku nool wadanka Soomaaliya ayay ku nooshahay gobolada Soomaaliya mid ka mid ah ayay ku nooshahay gabadhaasi oo qisada tani ku dhacday waxay leedahay magacaygu waa Najma waxaan ahay gabar da'yara dhigatana dugsiga sare waxaan isla dhigan jirnay Sumaya oo iskala soo bilownay iskoolka hoose waxay Sumaya ku dhacday qadar xagga Alle ka qorneed. Sumaya waxay ahayd agoon markii aan baranayay balse markii dambe waxay noqotay rajo oo labadeedii waalid waa ay geeriyoodeen. Sumaya waxaa la soo dirisay xaalad xanuun ah. Gurigii adeerkeed bay u wareegtay dhowr bil markii ay adeerkeed la joogtay baa waxaa dhacday in familkii adeerkeed ay isku dhacaan ama xaaskii adeerkiisa ay isku dhacaan. Iskuulkiina ay ugu dambeysay muddo 2 bilood ku dhawaada. Maalin maalmaha ka mid ah Najmo oo garan la meesha ay ka baxday saaxiibteed talkii Sumayana uu dansan yahay in muddo ah ayay ka murugootay ama ay ka walwashay Sumaya hadal la'aanteeda ama dhawaaqis la'aanteeda. Iskuulkiina maysan imaanin muddo ku dhawaad 2 bilood ah. Kadib tel ayaa u soo dhacay Najma lambar aysan aqoon baa soo wacay. Najma markii ay qabatay baa waxaa la hadashay Sumaya oo oohinta cishan la ooysay Sumaya oo oohinta cishan la ayaa Najma soo wacday afkana furatay. Najma waxa ay ka bixi weyday Sumaya maxaa ku helay ama maxaa kugu dhacay oo aad la ooynaysaa ama aad la murugaysan tahay. Kumana maqal meel aad gashana kumaanan arag. waan garan waayay ayay leedahay ii waran saaxiib. Sumaya iyada oo ooynaysa bay ku tiri caawa ma kula seexan karaa meel aan jiifto ma haysto oo waa la isoo buriyay oo waxaa isoo burisay xaaskii adeerkay ayay leedahay. Sumaya oo oohinteedii sii wadato ayaa Najma tiri xageed joogtaa hadda gaari aan soo raaco fadlan lacagtan aniga ayaa dhiibayo meel hebel oo aan aga dagana ma jirto mana aqaan meel aan kugu imaaday balse waxaa jirtay taxi waxay leedahay waxaa jira taxi iyo xaajiyado iyo hoomey baa markaasi jirtay. Qisada tan waxay ku beegantahay ama ay dhacday ayay leedahay taariikh ahaan 2010 bishii 6 maalintana ma xasuusto ayay leedahay Najma. Wixii arrintii u sheegtay ama arrintaas ay la wadaagtay asxaabteed ama saaxiibayaasheeda oo iskuulka isla dhigan jireen kuna dhacday hooyadeed waxayna arrintii ay u sheegtay asxaabteeda iyo hooyadeed iyo walaalkeed oo guriga ay iskula noolaayeen mar ahaantaana uu u dhawaa aabahayd shaqona uu ku maqnaa. Najmo hooyadeed baa tiri saaxiibta ha imaato xaafadda adeerkeed waxay ka wadaa Najmo aabaheed ayaa loola jeedaa adeerka ha imaato ayay leedahay. Gurigii maadaama laga soo buriyay guriga adeerkeed laxmi ah ama adeerkeed aabaheed la dhashay laga soo buriyay ha imaato ayay leedahay guriga way kula joogi kartaa. Haddii intaa waxay leedahay waa lala hadli inta ha ku maalmo cunto ayay leedahay intaa nala sii joogto oo waxaan la hadlaynaa adeerkeed iyo familkii ay ka soo baxday. Diyaarin baa halkii lagu galay saacado kadib waxa ay iridii laga furay Sumaya iyo Najmo oo istaagan
yacni u istaagay boosteejada. Salaan, oohin, murugo, taariikhdii soo martay Sumaya baa bilaabatay ama ay waxay isku dayday inay aga sheekeyso taariikhdii ay soo martay markii ay hooyadeed iyo aabaheed dhinteen kadib. Ismoogaan markii laga hadlayo kadib waa la kala seexday iswareysi kadib. Subaxii baa Najma isku diyaarisay iskuulka oo ahayd Sumaya saaxiibteedii. Sidii caadada ahayd halkii Sumaya ay jiiftay ileen waa qof daalnaa. Najma waxay la sii dardaarantay hooyadeed waxayna kaga tagtay xaafadda. Sumaya oo soo kacday baa maamadii tiri quraacdana kadib. Sumaya iyo maamada waa wada sheekaysteen. Maamada waxa ay go'aansatay in ay u noqoto hooyo gabadhan dayacan, iskuulkeedina in ay dib ugu celiso ama ay ka bixiso wax yacni qarashaad ah ama iskuulkii wixii looga baahnay oo ay u matasho booskii waalidnimo ayay go'aansatay Najma hooyadeed. Markuu imaado Najma aabaheed yacni waxaan la hadlay ayay tiraahdaa waxaan arrintan u bandhigayaa anigana Najma aabaheed marka uu imaado si aan u kafaalo qaadno yacni murugadaada aan ilaahay baa feeli kara tiraahdaa murugadaada laakiin waxaan rajeynayaa inaan ku kafaalo qaadi doono. Waxay leedahay yacni gabadhan waxaana arrintan loola jeedaa ama sheekadatan ay ku socotaa gabdhaha dayactiran ama gabdhaha markii waalidiintooda ka dhintaan famil ahaan markii qof kale lagu wareejiyo gabdhaha aad ayay u qalbi jilicsan yihiin badanaa waa lagu tuntaa xuquuqdooda. Haddaba dhageysto haddii aad i maqlayso isku day sheekadan ama qisadatan inaad sii sheer gareyso si ay u gaarto dad badan oo jecel inay dadka kale ku dheelaan ama ka faa'iideystaan danyaridooda inay ka faa'iideystaan. Haddii aad igu cusub tahay mar kale iyo mar kale waxaan jeclahay inaan soo gudbiyo markasta qisooyinka dhaca. Igu dhiirigeli subscribe, like, share, comment waa ii muhiim. Fadlan iigu reeb qaybta commentiga wixii dhiirigelintaada ah. Waxaan rajeynayaa inaan ka bixin doono ama aan kala bixi doono fikrado qurux badan waayo bini'aadanka isku mid ma ahan hadba ninba sibuu u fikiraa. Waxaan rajeynayaa inaan fikradihiina kusoo kordhin doono channelka ama channelka aan ka bedeli doono waxyaabo badan insha Allah. Waxaan rajeynayaa qisadahan qisiyaal kale ka qurux badan inaan soo gudbin doono. Haddaba haddii ay kula joogto gabar waalidiinteeda ay ka dhinteen ama qof yacni danyar ah ama dhibaateysan fadlan ha ku diganin ama yacni ha isku dayin inaad ciqaabdo ama aad cilcisho waayo berri kamal ayuu meel ka soo bixi doonaa waadna u baahan doontaa adduunka ayaaba wareegto. Haddaba waxaan idin leeyahay tan iyo kuleeda dambe waxaan idinka sii tagayaa caafimaad bashbash barwaaqo biidnillaah. waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.